laakiin inta meelooda wax ku xidhi jirtayba waan soo maray station police waa la igu xidhay NSS waa la igu xidhay xero gulwado waa la igu xidhay xero military waa la igu xidhay dhabarjabin waa la igu xidhay jeel waa la igu xidhay weligeyna maxkamad layma tagin bismillah alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah mala waa laga fiican yahay qof bini aadam inuu isagu iska warramo weligiis ma warramin intaan noolaa nin badan baa ama TV ama qolo jaraa'ida ama qolo raadiyo waa ii yimaadeen oo ku waraysanayna weligeyna war ma bixin weligeyna TV ma tegin waxaa dadku daawadaan masaajidda unbay ka qaateen cajaladaha yaalla dee waxaan islahaa cali markuu iska warramaad ka dambaysi calina diid inuu warramo marka wax badanoo aan idin sheego runtii ay idinku kordhinaysaana ma jiro wakhtigiina la lumiyo maaha anuu ragga halkan fadhiya waa ka wada da'weynaan u malaynayaa sheekh maxamed umar mala isku dhadhownahay mustafa xaj ismaaciil haaruun baa la yidhaahdaa reer wadaaddaa baa ka dhashay aabbahay xaaji baa uu ku magac dheeraa nin sheekh uu ahaa awogay aw haaruun baa la odhan jiray awogay ka dambeeya aw yuusuf baa la odhan jiray reer culummo oo diin ku taxan ayaan ka dhashay reer ahaan gobolka burcaan ku dhashay wakhtigii isticmaarkaanan dhashay intii aan dowladda soomaaliya dhalanin dadka geedka hoostiisa ku dhashayna waa ka mid ahay inkastoo aabbahay allah u naxariisto 45 sannadood buu cadan deganaa 1963 buu ka soo noqday laakiin dhaqanku wuxuu ahaa in islaamaha loo diro baadiyo ay baadiyo ku dhashaan iyadoo la diidan yahay dhakhtarka iyo raggaa joogiya waxaasi aanay islaamuhu rabin ee loo diro hooyadeedoo baadiyo joogta inay baadiyo lagu soo umuro intaanu walaalaanay nin qura nagaga dhashay cadan intayadii kaleba baadiyaana loo diray baadiyaanu ku soo dhalanay baadiyaha gobolka togdheer ee burco ayaan ku dhashay isagaan wax ku bartay malcaamad dugsi hoose dugsi dhexe institutekii jarmalka ee burco ku yaalay intaasaan ka baxay takhasuskaygu tumaalnimada laydku ahaa jaamacaddii soomaaliyeed baan ka baxay 1980kii iyadana takhasuskaygu tumaal laydha baan kaga baxay korontada tumaalku waa farsamo yaqaan laydh baan kaga baxay jaamacadda kadibna waxaan noqday macallin dugsiga farsamada gacanta ee jarmalku dhisay ku yaalla magaalada burcaan macallin ka noqday markaan muddo sanad iyo meelaha joogay dowladdii soomaaliyeed baa ay xidhay dowladdaas soomaaliyeed ma rabo wax badan inaan ka sheego laakiin inta meelooda wax ku xidhi jirtayba waan soo maray station police waa la igu xidhay NSS waa la igu xidhay xero gulwado waa la igu xidhay xero military waa la igu xidhay dhabarjabin waa la igu xidhay jeel waa la igu xidhay weligeyna maxkamad layma tagin mararka qaarkoodna sannadaan ku jiray mararka qaarkood baan 30 bilood ku jiray calaa kulli xaal waxbarashada diineedna waxun bay ahayd un culammada Soomaaliyeed ee waddanka degan wixii aanu ka bowsanay ma jirin waddan dabadeed aanu baxay intii dambana saanu joogo un waddanka Soomaaliya ayaa dagaaladii jabhaduhu ka dhaceen magaalada burcaan joogay markii 1988 jabhadu soo gashay wakhtigaas baan waddanka ka baxay yurub iyo meelahaasaan niman xanuunsanayo aan walaalana geeyey anigoo yurub joogaa dowladdii soomaaliyeedna dhacday ilaa 99kii baan deganaa yurub march 1999 baan dib ugu soo noqday magaalada hargeysa ilaa haddana hargeysaan deganay laakiin socodkayga yurub waa tiro badan yihi 12 sannadood dhamma burciya hargeysa un baan ka dhexeeya laakiin waa badan yahay socodkayga aan ku noqnoqdo yurub iyo meelahaan ku noqdo
qaab nololeedkii Soomaaliya waagii horena ee lixdanaadkiina dimuqraasi bay ahayd dimuqraasi qabiilkan uun ku salaysan haddaba aragtaan waxaan xasuustaa iyadoo 1969 meelaha markii doorashooyinkii dhacayeen dadku intay wadada maraan baa waxaa la odhan jiray dhulka yaale ilaahay baa leh ka sokowna reer hebel baa leh saas cirka yaale cirkiiyo dhulka la sheegay jiray hebelada jiray dawladdii kacaanka ee Soomaaliyeed markay qabsatayna scientific socialism baa la qaatay scientific socialism-kuna wuxuu noqday diin la dirir annaguna dhalinyaro uun markaa waxoogaa diinta ka garatay oo aan systemkaa ku qanacsanayn hortaagan baanu ahayn ma jirin cilmigu sidanuu hadda u faafsan yahay oo dawladdii Soomaaliyeed waxay lahayd censorship aan ogolayn kitaab aan dawladdu ogolaanin waddanka ma soo gali jirin waddankuna sidan uu iminka isaga furaya isagama furay diyaaradaha dibadda ka yimaada only xamar oo ka soo degi jirtay lama ogolayn waddanka inta kale diyaarad dabadeed inay ka soo degto isdaradeed wax kasta oo waddanka soo gala censorship faafreeb wax la yidhaahdo soo mari jiray marka kutubtu almost mamnuuc bay ahayd dan qisa idiin sheego dhowr iyo 70 anigoo dumar tafsiir u dhigaya habeenkii baan dhigi jirnay guri madow habeenku markuu dam noqdo ayaad guri tagaysaa dabeetana halkaasaad waxoogaa dhowr dumar oo la soo ururiyey tafsiir ugu akhriyaysa tafsiirkan haystay markaa waxaa kitaabkan jalaalaynka la yidhaahdo jalaalaynadii waagaa dadku haysteen iskuma rakibnayn waxay ahaan jireen dhowr xaashiyood oo isku jiri jireen dabeetana gal sare buu leeyahay ku daboolan habeenba labada xaashiyood aad dhigaysaad kala baxaysaa lagu furfuran yahay labadii baan la soo baxay habeenkii anigoo meel la sii dhukusaya ayaa dabayliyey timo labadiina dabayshii baa qaadatay yani kutub ma taalo badani aad bay cidhiidhi u ahayd culimo waddanka waa deganayd laakiin lama ogolayn inay wax dhigaan ama wax akhriyaan bale waxaa laga yaabaa haddaad nin dhallinyaro ah tahay inuu kaa boqo waayo dawladda ku xidhaysa inuu kaa fogaado nin inuu tafsiir caama ama akhriyi jiray weliba Soomaaliya waagaasi tafsiirka bisha Ramadaan baa inta badan la akhriyi jiray waqtiyada kale kutubta fiqiga ama naxwaha waxaa la akhriyi jiray على كل حال waxaan uga daleeyay aan arrintan u tilmaamayo waxa weeyaan jaaniska ay ku haysataan ma oolin waaga jaaniskana ay kutubtu baaqiina jeeb ku sidataan ku jirto meel kasta lagu iibinayo ay kitaab aad u baahataan helayso electronically aad shaamila soo download gareynayso oo dhowr iyo 10,000 oo mujalladay ku jiraan yani jaaniska sida tan ee qofku research samayn kara wax baxthi kara wax baari kara waaga ma oolin لكن waxay yaalay dad committed oo dadaalaya mala daacadnimada ku jirto oo in Ilaahay wax ugu dhawaadaan ay ku jirto marka aanu qadiyada jecel inaan ku celiyo waxa weeyaan war nicmada haysataan ku saabsiisan diintu sida ay maanta u fududahay inuu qofku barto may jirin may oolin waxay ahayd wax aad u cidhiidhiya sidaad u xasilisana ay inta badan ku xidhnaanayso sidaad wax u akhrido xataa iyadoo wax akhriskaagu fiican yahayna aanad helaynin wixii aad akhriyi lahayd uu cidhiidhi kugu gelayo intan dambe dee meelaha uun Soomaalidu joogto baan wax ka sheegi jirnay anigu macallin baan ahaan jiray saa daraaddeed sheekh maan noqonin weli bana gaadhin macallinkuna daris loo diro buu soo diyaariyaa oo daadhiga waana laga yaabaa waqti aanay culamada Soomaaliyeed haysanin qalabkan technology-ga inaan uu Yurub ka hortagayo wax akhriyo dad wuxuu akhriyay aan xasuustaa ajaladahan ugu badan hore ee 90-yadii dadku dhageysan jireen maqaaxan ku akhriyi jiray Soomaaliyeed oo Norway maqaaxid Somali Welfare Leader Somali Welfare Organization ayaa ku war labadii toddobaad maalin wax ma idin akhriyay oo ka saydaadeen ha
niman carabaha ka tegay oo aan diinta isku fiicnayn baa ku badnaa markaasaan bilaabay inaan muxaadaraad xawla aliimaan arkaan aliimaan iyo xawla alxadaara alislaamiya inaan ka warramo nin dhallinyaraa baan aha hadal badan 2 saac iyo dheeraad baan maalin ileen 14 cashaan mar helaya markaa waxay noqotay markaa inaan 2 saac iyo dheeraad hadlo dadka markaa cajaladahaas baa soo gaadho markaas la siiyay malaa ninkan sheekh weyn waa sheekh weynna marna ma noqonin laakiin uun fursad aanay jirin anigu in wax la duubo maan rabin waxaan xasuustaa waxba ha duubinaan ku idhi nin dhallinyaraa baa intuu kamarad iska soo qaatay buu wuxuu yihi sheekh ama fadhiyo wax akhriya ama iska tag xagga dambe ula fadhiista markaa waxaan kala doortay inaan wax akhriyo iyo inaan iska tago markaasaan iska akhriyey dariskii dambaan imi maalintii dambe cajaladu sidaan iminka ay u badayn uma badnayne VHS bay ahaan jireen VHS-kana warshad baa badin jirtay keliya intay cajaladii qaadeen bay warshad geeyeen dabeetana dhowr boqoloo cajaladood bay ka dhigano iyagoo meesha ku iibinayaan ugu imin nin cabdillaahi xuseen kahya la yidhaahda iyo inaa loorana la yidhaahda iyo axmed baaruud iyo iyagoo iibinayaan waar waa sidee dee waxaana iibinaysaa waxay dhahayn sheekh masaajidkaan kirada kaga bixinayna markaasaan iska aamusoo sirida masaajidkaan kirada halagaga bixiyo marka waxaan dadku duubayna anigu kuma talagelina inaan duubo TV-na weli ma tegin raadiyona weli ma tegin wadaadku su-aalaha badan uu dadka weydiinayana malaa inuu soo ka jawaabaa bay ku fiican tahay anigu intaasaan ku gabagabaynaya wasalaamu calaykum